waxaanu halkan dhagax dhigiisii iyo bilowgiisii samaynaynaa معهد أنوجو مقعدري معهد بلال لخدمة القرآن وعلومه معهد كاسو إن شاء الله تعالى أنكدي السدون مقالة بورما معهد كاسو نقن دون معهد بوردنا وأرضي ذا قيب أي صحة إن شاء الله تعالى اسمي سو كمد نقن دونه وحمعد كوكبنان دونا إن شاء الله تعالى لبد اسمه واوين ومن صدح دبقة يمسد كي أو دحيو لبد دبقة بإذن الله تعالى مشروع سيدا أي قياسين مهندسين تام إنجنيرات وحقوق عدونا لعكس سيدات بقول أو كنا إن شاء الله تعالى وحتولي يساو لسيدون تا معد كاس شركة الفضل كونستراكشن كامل اسمها قابل سن marka maanta dhagax dhigiisii iyo furitaankiisii ayaa waxa nagala soo qayb galay culimadii baladka oo dhan oo uu hogaaminayo sheekul baladka Sheekh Abdullaahi Sheekh Ali Jawhar xafidahullah oo ay weheliyaan dhammaan talabatul cilmiga iyo culimadii kale magaalada Sheekh Xuseen Nuur Qalinle oo sheekhi Qur'aanka ayaa isaguna insha Allah taala maanta goobjoog ka ducadan marka Ilaahay waxaan weydiisanaynaa subhanahu wa taala macadka weyn aan tamaninaynaa magaalada u dhisno oo uu ka qabtiro macna baahi weyn oo ay magaalada u qabto wa khaasatan xagga boardingka ama deegaanka meelaha la seexdo gobolku ma laha macahad boardina ama hada ku diini ama ku kale marka insha Allah taala arintaas yeeysanay ilaahayna waxaan bareenaa subhanahu wa taala inuu noo dhameystiro noo fududeeyo macadkan dhiskiisa maanta aan dhagax dhigayno waxa kamid yahay macaahida boorama macadkii ugu qiimaha weynaa uu kamid yahay maadaama uu yahay boarding iyo masjid wali hore loogama aasaasin macaahid dhisnay waa jiraan oo qiimo leh laakiin wali macad sidaas oo kala ah dhiska lagu tala jiro ka kooban dhulkii boardingka adadu seexanayeen iyo masaajidkii waa meeshii ugu horeysay buqacadan kale ee hadda imika aan joogno ee laga dhisay oo anugu aan u qaano buqada qaybta ee kala tilmaamaya la ilaa qaybtii harawa la yiraahdo wadarkaasaan waxay ku banaantay magaaladii boorama kala badh oo badh dhismaheeda qiyaasta lagu qiyaasaya inuu ka hirgalayo haddayna ka badnaano in magaaladu xaggan ba ayna u badnin marka baahi weyn baana loo qabay macahad ardaydu ay dhex seexdaan oo masaajidkiina leh tarbiyadana waxa ugu qiimo badan waxa weeye ardayga oo madrasadii uu ku dhiganayay macadkii taxfiidka quraanka uu ku dhiganayay meeshii uu galayayna ay ku taalo masjidkii uu ku cibaadeysanayna ay ku taalo adduunka way ku yartay meesha caynkaasi innagana maanta qiimo weyn bay noogu fadhidaa macadkaasi noogu fadhiyaa ilaa idinkii waxaan ka baryaynaa inoo hirgalo dadka muxsiniinta gudaha iyo dibadda haday joogaan iyagana waxaan ka codsanaynaa maxamed muuse miisaan xamdulle oo jagada ku deeqay isaguna aad buu u mahadsan yahay kuwa hareeriyaha ka xigan naftooda waxaan ku rajo weynaa dadku waa helo khayr inay ku darsan doonaan jagooyinkan iyaga naftooda ku rajo weynahay oo sadaqad jaariya si ay ugu noqoto ay macalka ku biiran doonaan baan iyaga naftooda adduunyada waa laga tagayaa iyaan iyagana rajaynaa kaafatul muxsiniin waxaan ugu baaqaynaa inay kala soo qayb galaan dhismaha dhisaayu gacanta ku hayo Sheekh Maxamed Cabdi Shein oo nin qiimo oo aan ku kalsoonahay ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu ka bilaabmo macad qur'aani ah oo hadda ka hor maartay waxa weyn magaaladan laga dhisin in maanta aynu dhagaxyaan dhigayno aad iyo aad baan horta ugu faraxsanahay caalamkana waxaan jeclahay in saan ugu la farxaan oo maartay waxa weeyaan dhismihiisa ay ka soo qayb galaan waa meeshii maartay waxa weeyaan shilin lagu bixin lahaa meelihii ugu fadli badnaa waa masaajida iyo maartay iyo goobaha quraanka lagu barto ilaahay maartay cidii wax ku darsatana Allah ka abaal mariyo dhismaha insha Allah maartay maalin maalmaha kamida oo insha Allah cidii alla gaarsiiyo aad aan ugu farxi doono maartay waxaan markuu dhismihiisu taam noqdo insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu taam noqdo halkani waa maxad taxfiidul qur'aana oo hoygii la seexanayayna leh ilaahay horta waxaan ka baryaynaa inuu noo taam yeelo oo sidaa inay bixintiisu u fududaatay dhismihiisuna u fududaado yaan ilaahay ka baryaynaa dadka muxsiniinta ana waxaan leenahay waa inay ku darsada innaga halkan joognaanahan ku darsana ilaan haddaan qof kale wax weydiino waxay noqonaysaa in cid kale wax la baryaye intayna halkan joogtaana aan ku darsano dadka muxsiniinkana waxaan leenahay ku darsada wax weeyaanoo af waalidna ku hadlaya dadka waalidiinta ee caruurta boardingka u doonayayna waa taa meeshii la bilaabaye waa inay ka qayb qaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dadkii jagadan ku deeqay oo odaygii adeero ahaayee miisaan magaciisa la magac dhabay dhowr jeer
caafimaad u jooga Turkiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad inuu siiyo bedelkeedana janno ugu bedelo marka inta laga tago macadka Bilaal waa macad quraanka iyo culumtiisa lagu baranayo sida la sheegay oo boodhina leh taxfiidkii iyo tasxiixii iyo qiraa'aadkiiba insha Allah ta'ala lagu baran doono masaajidkiina leh oo isaguna uu ku dhex yaalo qaybtii boodhinka la seexanayay leh waxaan insha Allah ta'ala ilaahay ka baryaynaa sida bilowgeedii uu inoogu sahlay inuu dhameystirkeegana insha Allah ta'ala inoogu sahlo maanta waxaan halkan u joognaa sida horeyba culimadu ay uga hadleen معهدك معهد بلال للقرآن وعلومه معهد كاس oo loogu talagalay in lagu barto culumta quraanka guud ahaanba hadii ay tahay quraanka xifdintiisa oo qayb kamid ah quraanka tasiixintiisa qiraa'aadkii quraanka iyo culumtii kale ee quraankaba lagu dhiganayo معهدkan waxa laga dhisayaa dhul dhan 50 iyo 30 waa dhul aad iyo aad u ballaaran meel aad iyo aad u qurux badan ku yaala oo magaalada Boorama galbeedkeeda معهدkan waxa dhigi doona oo macallimiin ka noqonaya macallimiin waaweyn oo magac ku leh wadanka Soomaaliyeed guud ahaanba waxa saldhig u noqonaya معهدkan oo si rasmi ah u fariisanaya Sheekh Cabdi Fataax daahir cige Cabdi Fataax oo ilaahay khayr siiyo inaan aad iyo aad u dhalin yara caalimna culumta quraanka iyo qiraa'aadkana caalim ku ah أزهر كسب بحي أو قراءات قرآن كا ميل في عنك جاري أو دمايستري شهادين عالمي هو وين إن كقاطي وطن كجودي سيد بدي سبع عالم إن عنك وأد لوجا يقانو أرضي أدي أدو بدنا صاري مركا عبد الفتاح السيلعي عنكوا أيام معلم كان نقندونا علوم تكلا قرآن كا وحكا قيب قال يجونا أو ده معلمين كان نقندونا شيخ محمد عبد حسن ومشروعا مدح ka dhismihiisa Maxamed Shiine isaguna sheekh weyn oo culimta shariicadana aqoon wanaagsan u leh iyo culumta kale quraankaba macallinna kan noqon doona isaga laftiisu macallin buu ka noqon doona macadkan dhigidiisa iyo maamulkiisaba qayb weyn buu ka yahay Sheekh Maxamed Shiine waxaan rajaynayaa dadka maqlaya dal iyo dibadba inay dhismaha ka soo qayb galaan